waliba maalintii shalay ahayd guud ahaan beddelkun Kenya la shaaciyay natiijada imtixaanka qaranka dugsiyada sare mayna kaalmo fayl ku galay qaar kumida ardayda iskuulada sare dhameeyay oo kanool xarooyinka Qaxootiga Dhadhaab oo buundooyin fayl ku shan imtixaankaas waan wal kumida ardaydaas oo warramay TV-ga caalamiga KGS Channel oo yoon ku warrameen dareenshoo isla markaasna in sheegintiyo idinka faraxsiin waxaan keenay B+ 67 dhibcood waan ku faraxsanahay darajada aan keenay ilaahay aan ugu mahadcelinayaa marka labaad waxaan u mahadcelinayaa waalidiintayda iyo macallimiintii soo gaarsiiyay heerkan oo igu soo dadaalay iyo ardadii aan saaxiibada ahayn Abdiraxmaan Xuseen Cabdi ama imtixaanka ka sameeyay KCC-da iskuulkan aan joogna hadda oo waa Bari Secondary School waxaan keenay darajada B+ oo 73 points ah alxamdulillah waan ku faraxsanahay sidoo kale waxaan ka murugeysanahay saaxiibadii aan isku dadaalka ahayn oo isla intaas oo sano aan wax isla akhrisanay isku juhdiga aan soo bixinay waa ay maanta u suurtagali weyday inay darajadan oo kala keenaan waxaan leeyahay haniyad jamina nolosha ma dhitamayn garanaysa ama baalka nolosha ma qiimeynayso nambarada aan ka keenayno iskuulka ee waxa qiimeynaya nolosha ilaahay ayaa qiimeynaya oo garanaya mustaqbalkeena meesha uu ku dambaynayo وأكو شفاعة عبد الله عبدي أو يقدوميا جود والبرشة حروينك قعوتك الداب أو سون ينقر من درنشي إسلام مركز نشاقنتيو إيدن كفرح سنين نتيجة ديو شنن أرديدا بسم الله الرحمن الرحيم أنا شفاعة عبد الله عبدي أو أفر الشامان كأو أفرت الحرق الداب كام اسكندرياشة هيدا ودل تراس أنا شامان كوبري وحن آدي هذا وفرح سنة هاي iskuulkan oo ah kii maanta ugu sareeyo xagga najiidada oo ilmihi foonfooga oo laba arday oo hadda agteeda jooga ay haystaan B+ iyagoo nooista noqonaya ardaydii saddexaad ee ku xiga maadaama oo arday ka mid ah oo nimidka number 1 ka haysto uu haysto 73 point oo hal point kaliya uga harsan tahay taas ay ka horeeyaan hal arday oo Wajeer iyo hal arday oo Mandera oo ay meenis wada haystaan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay si kastoo taaba imtixaankun la sheegay maalintii shalay hayti yani jabwinka abuur arday badan maadaama eediyeen hoosayta ardayda sanadkun ka baastay imtixaanka Idris Maxamed Xasan Idris Afiya KGS Channel xarooyinka Qaxootiga Dhadhaab